Suldaan Saleemaan Boqor Cismaan oo kamid ah salaadiinta dhaqanka Soomaaliland oo maanta jiljireed ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay qaar kamid ah salaadiinta dhaqanka Soomaaliland oo toddobaadkan gudihiisa jiljireed ku qabtay gobolada kala duwan ee dalka kaasi oo ay kaga hadlayeen mid kamid ah ganacsatada reer Soomaaliland oo ay sheegeen in dawladda Djibouti Soomaaliland ka dalbatay inay u soo gacan geliso suldaanka ayaa arintaasi ku tilmaamay mid aan sal iyo raad lahayn isla markaasina baaq u diray bahda dhaqanka Soomaaliland madgeelle awow baan u hayanagu reerka aabihii dhalay baan Cismaan aabihii baan ayaan dhal cidiga awleysan hiilkiisa iyo arintiisa ku dhiloodkooda ma jirto hadii reer laga dhigo oo Axmed Geelle reer laga dhigana anigu waxaan leeyahay meeqaamkiisa hoos baa loo dhigay ma aha reer ma aha Axmed Geelle waa nin qaranka Soomaaliland buu ka dhashay ka Djibouti buu ayuu ka dhashay labadaba waa nin muwaadina hadii laga gardaran yahayna qaranka Soomaaliland difaaco oo dawladaha isku dilo qof kaliya ilaa xadkay doonaysa haday gaadhayso lagu difaaco ana qaba haduu gardarayna in la qabto ana qaba laakiin hanjabaad la soo fadhiistaha dhuunaag oo qaranka Soomaaliland iyo ka Djibouti iyo meel laba la dhaafi waayo ninba wixii uu afka ka oran karaa iyo xumaana uu ka yiraahdo ayaan darro weyn oo xaqiiqada waxba ka tareeyay runta iyo xaqiiqada waxba ka tareeyay wax ka tareeyay waxa weeye Axmed Geelle hiilka waay in la ogaado ma gardaray mise waa la gardaray waa gardaray soo maaha waa qabanayna anaga qabanayna haduu gardaray waa laga gardaray soo maaha waa ka qabanayna cidi ka gardaran hiilkiisu waa intaas in la ogaade in la hanjabo oo Hargeysa dhexdeeda laga hanjabay iyo hadwanaag maaha dadka bini aadamka de afku hadii uu ninku wuxuu doono ka oranayo cidina qaban mayso afaan kugu olida cidina qabato nin waliba haduu wuxuu doono ku hadlaayo oo umid yahay iska soo taagayo afaan kugu oolin cidina qaban mayso laakiin qofku inuu isku turaab fiican qarankiisa inuu turaab fiican ninku la xajaleynayna inuu turaab fiican Axmedna looma turin qarankana looma turin inkastoo ay waxba ku noqonaynin oo hanjabaada aan waxba ku noqonaynin hadal xumida qaranka Soomaaliland iyo ka Djibouti toona waxba ku noqonaynin oo xiriirku waxba ku noqonaynin haddana ragii ku hadlay caynka u hadlay sharaftoodii iyo magacoodii iyo waxay meel kaga dhaceen qaranimada Soomaaliland inta meel bay kaga dhaceen marka waxaan ku soo ururinayaa oo hadalkayga kaga baxaya warinaankaasu waa ina wanaagsan hadduu wax qabana waa la arki oo badayman haddaan wax qabqayna waa la cadayn laakiin labada dhexdooda ma ahayn mugdi laga hanjaba maaha in mugdi laga hanjaba maaha anigu aad baan la yaabanay odayaasha hadlay kuwa taageerana waxba ma taageerin waa la yaab weey ya dadka ninku markuu khaldan yahay waxa taageero waa inaad ku tiraahdo waad khaldan tahay walaal iska daa khaladka taageerada wanaagsan waa taa laakiin tirinaata waan kugu raacsanahay si wanaagsan oo adag baad u hadasha waxba ma tarto alla waxay tartaa ma jirto cidna wax ma yeesho laakiin nin waliba waxa weeyaan hiilku waxa weeyaan waa cadaalad inaad ugu hiiliso qofka cadaaladda hiilka waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynaya oo leeyahay hiilka Axmed hiilkiisu waxa weeyaan waa inuu cadaalad helo hanjabaad maaha hadal xumo maaha aflagaada maaha wax ay ka taraysaana ma jirto waxay ka taraysaana ma jirto marka waxaan ku soo ururinayaa odayaasha hadlay labaantii Soomaaliland iyo odayaashoodii hadallada aan qabanaynin qaranka Soomaaliland iyo Djibouti labadaba ku hadlay war arinta xaalka bixiyaan leh Cabdiqani Xuseen Abukar Cabdiqani Baylo telefishinka caalamiga ee Bulsho TV Hargeysa